hore ka hadli doonaa laba arrimood. Horta maxaa sabab u ah inaan mowduuca ka hadalno ubadka inaan barbaarino? taa baan tilmaami doonaa. Sababta ii keentay muxaadarada inaan ciwaankan qaato waxa weeyaan, waxaan ognahay in maanta ubadka inta ugu badan ee xabsida ku jira inaan nahay ubadkeena leeyihiin, waa Soomaali weeyaan. Arrinta labaad, ubadka la dilayo waad ogtihiin, hadday tahay halkan Ottawa iyo hadday tahay Toronto iyo hadday tahay gobolada kaleba Alberta, ubadka geerida la kulmaya foosha xun leh waa ubad Soomaaliyeed weeyaan, waa ugu andhalle weeyaan. Arrinta saddexaad waxa weeye, markaan u fiirsano adduunkan meeshaan imanay iyo meeshaan ka imanay farqi baa u dhexeeya. farqiga u dhexeeya waxa weeye, meel waxaan ka imanay islaamku uu yahay number 1, waxaan imanay meel islaamku yahay 0. waxaan imanay meel aanu ka nahay taliyayaal, waxaan imanay meel aanu ka nahay loo taliyayaal. waxaan ka imanay meel aan shidano, waxaan imanay meel aan nala shidanayo. waxaan imanay meel aan nala dhegeysto, waxaan imanay meel aan inaa wax naloo dhigo, macalimiin arday baan noqonay. waxaan imanay meel aan naqaanay sida loola falgalo, waxaan imanay meel aan jaahil ka nahay sida loola falgalo. waxaa dhacday waxa loo yaqaano shock, sadma. annaka iyo meeshii baan isku dhacnay, waan soo kala boodnay. waxaan fahmi weynay sidaan u maareyn lahayn arrintaas. markaa saddexdaas sababood baa igu wacan inaan doorto muxaadaro aan u bixiyey sideen ubadka aan u barbaarinaa islaamka dhexdiisa. arrinta labaad oon jeclahay inaan muqadimo uga dhiga waxa weeye, ilaahay qiyaamaha markaan hor tagno, odayaasheenan halkan fadhiya iyo hooyooyinka fadhiya iyo kuwa inaga maqlayaba iclaamka iyo warbaahinta, markaan ilaahay aakhiro hor tagno, ilaahay laba shay buu ina weydiinayaa. wuxuu ina weydiinayaa nafteenna iyo ubadkeenna iyo xasaskeenna. saa daraadeed buu ilaahay qur-aanka ugu yihi, quu anfusakum wa ahliikum naaran, nafihiinana ka badbaadiya, ehelkiinana ka badbaadiya naar. marka xisaabta aakhire ina sugaysaay maha fardi, markaan nahay mas-uul. xisaabta aakhire ina sugaysa waxa weeye, waxaan mas-uul ka nahay dadkan adduunka keenay een dhallay. ma aha inaan hanuunino, annaku hanuunkeena ilaahay nama weydiinayo. inaka laa tahdi man axbabta walaakina allaha yahdi man yashaa. annaku ma hanuuninayno, laakiin waa inaan waajibkeeni kasoo baxno. way dhici kartaa adoo waajibkaa kasoo baxay inuu ilmahaagu ku diido, siduu nebi nuux ba u diiday calayhi salaam. nebi nuux ilaahay baa doortay, ululcasbi uu ku jiray, ilmihiisii buu ka yidhi kaale soo kor maaragtay doonidatan maantaan ku badbaadiyo. wuxuu yihi aabba buurtaan koraya anigu, adiga kuma raacayo. kaafir buu doortay, marka waana nebi baa dhalay. marka kama dhigno inuu ubadkaagu aad ku guuleysan kartid 100%, laakiin waa inaad juhdi bixisid weeyaan. juhdigaana ilahi waa barakeynaya. sheekheena cabdilwahaab baa inoo soo sheegay. marka ikhwaani fillah, mas-uuliyaddaasi aan uga soo baxno waa inaan barano waxa la dhahdo tarbiyat lawlaad. tarbiyat lawlaad intaan sheegin maa hiya tarbiya, waxaan jeclahay tarbiyadu waa 3 arrimood. si fiican aan iskula fahno. haddaan Soomaali nahay, sida loo wado baabuurta waan baranaa markaan gaari ka haynino. maxaan wada warnaa dhammaantiin raggoo halkan fadhiya maxay wadaan? rag badan baa caawa ila soo hadlayo, waxay lahaayeen wadaadkii shirwac ma soo tuuri doona, ma iman karna muxaadarade, oo maxaad u iman karin? war caawa way shidmaysaa, magaalada shidmaysee, baalkii baan kornay bay lahay. maxaa dhacmay? uber markaas waxaan u jeedaa waxa weeye, sida loo wado waan naqaanaa, waan baranaa. sida maaragtay marka uu qofku rabo inuu noqdo security, dugsi buu tababar buu qaataa. wax wal oon samaynayno waanu baranaa. qofka inuu maqaaxi ka shaqeeyo, doonyo cunto inuu kariyo, waxaa u bartaa sida cunto loo kariyo. qof iska cunto un iska karinaya ma jira. anaku dee waa hooyana soo bariso saliidda. marka Soomaalida waa aragtay cunto markay karinayaan, maanta saliidda ay ka badan bay kornaysaa, maanta milixdaa ku yara badan. sababtu waa maxay? waa waxaan la cilmiyey. lama cilmiye milix inta loogu talagalay baa jirta oo dhadhanku dhag ku noqonayo. marka waa la keenaysaa, waa wadaysaa ilaa la qabsatid. waxaan waaye guriga, waxaan waaye cunto sidaa uuna waa waay. maxaa yeele ma dhici karto, leanno iskool looguma soo bixin. laakiin ragganaad aragteen baqaxyaa ka shaqeeyo, bahladuna siisa
iskoolay soo mareen way barteen cilmiga raashin karinta sidee raashin loo kariya waa la bartay okay su-aashu waxa weeye tarbiyadu ilmo in la iska barbaariyo wax suurtagal ah ma yahay saddex shay bay u baahan tahay kow barbaarintu waxay u baahan tahay aqoon cilmi macrifa laba waxay u baahan tahay artist fun saddex waxay u baahan tahay mahaarad waa xirfad waa technical saddexdaas shay markay iskugu kaabiraan waxaad helaysaa habkii ilmo loo barbaarinayay waan kusoo celinayaa si ibad loo barbaariyo waxaa loo baahan yahay cilmi cilmigu waa maxay cilmigu waxa weeyaan kow loo geeyo waa labo cilmigu waa sida tarbiyaddu waxay ka mid tahay waxaa loo yaqaano culuum insaaniya saynisku laba loo qaybiyaa aqoonta waxaa loo qaybiyaa sayniska technicalka sida physicska amba physiga biologiga wixii caynkaas waa sayniskii cilmiga ahaa iyo sayniska bini aadanka wixii bini aadanka ku duuro dhan hadday tahay tarbiyad hadday tahay taariikh hadday tahay diin hadday tahay ilbaxnimo hadday tahay political hadday tahay dhaqaale waxaa loo yaqaanaa cilmiga culuum insaaniya sayniska baa loo yaqaanaa okay tarbiyadu waxay ku jirtaa qeybta bini aadanka ku duureysa qeybta bini aadanka ku duureysa waa falsafad weeyaan waa cilmi adag oo ka adag cilmigan hal loo geeyey maxaa yeelay waxa la dhaqmayo waa bini aadan waa insaan waxay ku duureysa insaankuna wax cajiib weeyaan marka tarbiyadu waa cilmi la barto waa aqoon saa daraadeed waxaa jira fakulteeyo la yidhahdo kuliyaadka tarbiyadda waxaa jira macaahid instituyo la yidhahdo macaahidda tarbiyadda waxaa jira doctoraad baa lagu qaataa maa bacda doctoraad baa lagu qaataa waa la kobciyaa waa la kordhiyaa iminka waxaad gaadhay wadanka la yidhaahdo Denmark wuxuu gaadhay xabsiyadan yareynaa tarbiyadan ballaadheynaa xabsigii ugu dambeeyey waxaa ku jira 200 qof waa la xidhaya xabsida okay hagee raggii xabsida ka shaqeynayay waxaa soo qaadatay Holland baa tiri nasiya annaka ha noo shaqeeyaan annaka xabsida waan xidhayna bidhaadeen oo maxaad ku bedelaysiin waxaan ku bedelinaa tarbiya ayay qofka marka la tarbiyadeynayo wuxuu maraa 3 jaranjaro 2 jaranjaro hore waxa dhada tarbiyadu ku waxa dhada tanshi'a waa kub ilmi yaraba la kubcinaya waa tanshi'a waa kubaca waa la barbaarinaya waa la eegaya talabaad waxa la dhahdaa tanshi'ada markuu ka soo baxo waxa la dhahdaa tarbiya tanshi'adu way hooseysaa tarbiyada ka sareysa oo ilmihi waa la saaxiibaya waxaad arkaysaa macallinkii oo ilmaha la ciyaaraya adoo halkan ma arki kartid sheekh imaamo ilmihi la ciyaaraya quraanka ku qoran tahay markay weydiisanayeen ree ilmo yacquub nabi yacquub noo dhiib nabi maxay yuusuf muxuu yartac maxay dhadeen wayalcab qofku yartac anu yalcab talama yaabo yartac baa la yaaba yartac waxa weeyaan hakala waan soo kala goynayna weeyaan ilmo waa inuu iskala gooyo caqliyan maskaxiyan waa inay meel qabata maaha miskiinka ciyaarka waxay ugu ordayaan gidaarkana soo celinayo waa inay buurta waxba soo celin weeyaan waa inuu intuu ordi karo ordo hadduu wiil yahay hadduu gabadh yahayba waa inuu badda gali karo uu meeshuu doono dabaalan karo waa inuu maaragtay buurta meesha ugu sareysa gaari karo yartac laakiin aad waxaad leedahay ha bixin ha kicin baad ka leedahay ilmi yaraaba san baad ka dhigto goorma kugu qarxo wuxuu sugayaa laxdad buu kugu qarxi lahaa marka waxaa meeshan ku jirta in lala saaxiibo ilmaha iskuullada wadanka la dhahdo maaragtay Finland oo sanadkii 10aad baxday tacliinta lambar 1 baxday sanadka 2019 waa soo saaray makana 2019 waa soo saaray lambar 1 bay baxday Finland waxa lambar 1 ay u baxayso 10 sano isku daba xigta wax weeyaan ciyaalka waxa wax loo dhigaa imsa saacadood rubuc xisada rubuc 15 daqiiqo intii kale maxaa la sameeyaa macalinku la ciyaara carruurta yartac wayalcab wala ciyaara waxa cajiiba waxaan ilmaha yar waxa la ogaaday maskaxda waxa dhageysay muxaadaro uu galay Sheekh Mustafa Xaji Ismaaciil rada maskaxda bini'aadamka intee leeg tahay oo muxaadaro aad qurux badan weeyaan buugaan buu ka soo akhriyay buugaan cilmiga waxa ku qoran ilmuhu 15 mirir waxay ku filan tahay inuu ku xafido 2 bog oo quraanka markaad xafidsiisid ilmihii boggii quraanka ahaa aad ku xafidsiisid 15 mirir intii kale ciyaarsiin quraanka ilmaha isku dirin akhri quraanka ilmi yara quraanka soo boodi quraanka lagu kitaabka ha ku dirin ka jooji quraanka ciyaarsi bad kale gali halkaas la gaaray marka tarbiyada labaad waa musaaxaba ta saddexaadina waa maxay waa ilmuhu marka uu gaadho 18 19 20 ku leekaado muxuu u baahan yahay tadriib u baahan yahay tadriibku waa maxay waa tababar buu ilmuhu baahan yahay ilmuhu ma baahna waqtigaas inaad tarbiyadeysid annaka waad aragtay ilmahaagii cunugaagii gabadhaadii oo ku leeg oo ku garab socota iyaad rabtaa inay 10 jir ahayd u dhaqantid ma imika waa tadriib waa formation waa seminar waa tababar weeyaan okay maxaan dhahnay ikhwaani fillah tarbiyadu waa koow waa cilmi laba maxaan dhahnay waa fan waa maxay waa artist
ilmahaagu waa 3 nooc mid uun buu noqonayaa ilmahaagu inuu yahay basari waa maxay ilmo indhaha kaala shaqeeya aabo soo eegaya waa basari abo hadda ilmaha sida ula dhaqmi basariga ee indhaha ka shaqeynaya me basariga doqonka maaha basarigu waa ilku shaqeeya waa visionaire ishu wax ka gartaa ishu wax ka gartaa markaad waxa ii soo qaad leedahay ma arkaysaa qoriga halkaa yaala kaa ii soo qaad ba ka dhahaysaa laakiin qorigaa soo qaad meel ka u tagi waa inaad u tilmaamtid meesha uu tagayo waa inaad ka tirahdid ma ila soc ma ifiirinaysaa markaad lahadaysid waxaan kuu sheegay ma fiirinaysaa waa inuu fiirinayo wixii ishuu ka shaqeynaya ilmahaagu ilmo kalaa jiro oo dhada samci dhegtaa shaqaysa indhuhu ma shaqeeyaan walidaalika waxaad arki waalidku leh ilmahan imaba soo eegaya ba aniga dadkaba ma eega dee waa sambuska yahay lakin ku dhegeysanaya ilaahay baa saa ugu talagal waa uun waa aburitaan waa samci muxuu rabaa dhagiisu kula socdaan dadka miskiinka ku tukanaya bal u fiirsan markuu khadiibku mimbarka joogo akrinaya khudbada qaar way kusoo eegaya khadiibka la socdaan indhaha qaarna way foorraan qaar baa mooda dadka foorra inay hurdaan ma iyo dhegtaa shaqeynaysa haddaad tirahdid sheekh ka war waxaad dhegeysanaysa kugu wada celini waa samci okay qolo saddexaad waxa dhahdaa waa xisi dareenada ka shaqeeyaan dareenada oo markaad la hadlaysid waa inaad ku tirahdid aabo amba hooyo waxaan kuu sheegay ma ila dareentay waa inaad ka tirahdid ma aragtay dhagteeda waxba ma arkayso ma maqashay haddaad ka tirahdid ma maqlayo laakiin waxaad ka dhahaysaa maxaad ka dhahaysaa ma dareentay ma dareemaysaa inaan gurigeenu sidii loogu talagalay una nahay inuu nidaamkii xumeynay ma dareemaysaa yaa ka leedahay waan dareemaya koran laakiin kii dhahan waxaad ka leedahay ma arkaysaa kii dhegana maxaad ka leedahay ma maqlaysaa annagu markaa waxaan doonaa inaan hadda adiga aabbaha mid unbaad ba tahay mid saddexaas haddaad tahay samci ma maqlaysiin labaa kaa baxday ciyaarka ku dhegeysanayba waa fun waa artist okay noocaas waxaa jira nooc kalea jira oo artista noocaas maxaa dhahdaa iqtiraabi iyo maxaa dhahdaa ibticaadi ciyaalka qaar baa distas qaata dad qofka binaadka qaataan aabbaha dhan bay ka durkaan iyo hooyadaba gurigiisu iska jiraa aabo asalaamu calaykum alaykum salam iska soconaya waxaa leedahay kan way nacaa kan ima jeclo ima qiimeeyo midna goshu kaa soo gala aabo hooyo alla kaabaa jeclanaysa kan waa cajiib baad leedahay macnihiisu wax kale maa waa iqtiraabi raxmad baa ku badan waa caatifi uu kugu soo dhawaanaya kana uu fogaanaya fogaanshaha kuma nacayo waa systematic ilahay u abuuray weyaan laakiin artist ba ubaahan tahay fani lagu dhamo waa nooc labaad waxaan sheegay noocii waa dhaqal iyo aragti iyo maxaan ku yidhi iyo dareen noocna waa dheeraad noocna maxaa yidhi waa dhawaan nooc saddexaad baa jira oo artistka u baahan nooca saddexaad waxaa jira ilmo adag oo loo yaqaano alwalad alcaniif wuu adag yahay waa qof aanan qalafsan qalaf odhan mayno waa qof jikaar ah mujaadil ah wax walba waay maxaa dhacay limaada waxaad tirahda waxaan ma jira muxuu jiraa ani lama aha buu kuleeyahy ku yar baan xalit lagu yihi sugaa la dhaa magacan kaa bedeli suga iska bedel baan ka yidhi maxaan bedeli magacay weyn qaarna wuxuu koranaya wallahi iga bedelo fiicanta sheekhi ba iga bedeleyba laakiin kani waay ma aqbalayo fud ma aqbalayo mid kalaytana wax walood ka tirahdid baa hayi buu kuleeyahy waa ogolaan waa laba qof ars ba naf fan sideed ula dhaqmi labada qof insaanku wax ka adag ma jiro qofka bini aadamka cajiin maaha saa u xafujinaysid maaha aduu xafujiyo saa ka dhigay busas ka soo noqon waad naxaysaa marka kan adag kaabaad leedahay waa fan marka arti ba baahan tahay okay ta saddexaad maxaa oranay mahaara waa technique imika gaadhiga marka lagu baraya wadid gaadhiga marka ugu horeysa gaadhiga lagu kursiyo od kortid oo la raacsan u riix adagka wux laakiin marka aan horta gaadhi ma wado anu gaadhiga ma wado baadiya ka sheekh ragga wada markaan saa u eegay waan yaabaa un ila sheekaysta way soo eegaan dhaqan beegaan gaadhi ku socdaa laakiin maalintii baranayeen say hayeen naftaa ka baxday sande technical baad baranaysaa waxaad noqonaysa ka dambe caadi waa mahaara saafada ilmaha se loo dhaqmo waa mahaaro iyadna ilaa ay kuu noqoto waxaad ku ciyaari kartid ya marka qaarkood waxaan arkaa
ilmo aad u fiican oo guri degan laakiin waalidku si ula dhaqmay ay xun tahay ilmihii waa xumaanaya. ilmo aad u fiican waxaa laga isagoo fiican baa laga leeyahay ma fiicli, waa mahaaro xun. qof binaadam ka tirahdid ma fiicli waa mahaaro xun. qofka inaad ka tirahdid had iyo jeer waad iga xadhaysiisaa ma fiican ba, waan ku nacaa, ima farax gelisid, habkaad u socotid anigu ima raali geliyo. qofkan biniaadamka waa mahaarada inaga xun. markaa saddexdaa shay isku geeno, waa cilmi iyo maxaa oranay, waa fan, waa mahaara. waxaa jira rag akademikaal ah oo jaamicadaha uga soo baxay cilmiga tarbiyadda, waa culumo, laakiin maxaa ka maqan aartka ka maqan, fankii waa faashiliin, tarbiyadda ku fashiliin. waxaa jira dad aad fan u yaqaana laakiin cilmi aan lahayn, ilmahan fahansanayn cilmi u lahayn waxan tarbiyadeed. oo markaa isleedahay war ninka waa fanaane ciyaalka isula dhaqmayo. nin baan maalin dhowta la kulmay, waxaan ku yidhi war ciyaalkaagu gaariga kama dhaadhic sida ka waran, waan kaa yaabay, waad jeceshaa ciyaalka? wuxuu yihi waan wereerinayaa, waan mashquulinayaa buu yihi. taa tarbiyad maaha waa fashal ah. maxaad u mashquulinaysaa? waktiba waan u diidi buu kuleeyahay ay helaanbaba. okay, kolkay soo baxaan kubad baan geyn, kubadday ka baxayaan, meel kalaan geyn, isagoo dabaqsan ma xaafadda keen waa siixin. ilmahaas markaa waad mashquulisay, isaguna wuxuu sugayaa inta uu gaadhay 16 jir isagoo ku mashquuliyo. ayaantuu 16 gaadhu kaa siibani, adeer waad mashquulisay, anna iminkaan ku mashquulinaya bu koran, uu kaa jaranay, uu ka argoosani. ma aha taasi tarbiyad ya. walidaalika waxaan u baahannahay inaan saddexdaa shay isku geyno, cilmi iyo fan iyo mahaarad. okay, waxaan imanaa tarbiyaddu waxay leedahay 5 arkaan. tarbiyad saan uga hadalno maxay leedahay tarbiyaddu 5 arkaan. miskiidku 5 arkaan buu leeyahay, islaamku muxuu leeyahay 5 arkaan buu leeyahay. rukni walbaba haddii la waayo tarbiyaddii rukni baa ba'aya. 5tan arkaan maxay tahay? waa cilmigi waxaan galana fankan oo iman doonaa. 5tan arkaani maxay tahay? rukniga koowaad waxaa dhahdaa tarbiyadi ma dhici karto hadduuna jirin ujeedo, objective ya goal, waa in hadaf leedahay. bismillah, tarbiyad waa inay hadaf yeelato. tarbiyad bila hadaf tarbiyad maaha. maxaad ujeedaa? ilmahan maxaad ugeysaa qur-aanka? hadafkaagu muxuu yahay? ilmahan maxaad dugsiga ugeysaa? ilmahan maxaad miskiiska u keentaa? ilmahan ko hadaf waa inuu jiro. hadafkaas siduu ekaanaya waan ka hadli doonaa. 2, rukniga labaad waa maxay? iyaa wax tarbiyadeeya, waa murabbigii, isaguna waa rukniga. iyaa wax barbaariya weye, waa murabbigii. isla socona soo maaha. 3 waa ayo? iyaa la barbaarinaya, almurabba, iyaa la barbaarinaya, waa kii 3aad weya. 4 almanhaj atarbawi, maxaan wax ku barbaarinaya? metodku muxuu yahay? manhajka aan ku tarbiyadeynayo qofka muxuu yahay? 5 wasaa'ilu tarbiya, maxaan isticmaalayaa si aan wax u tarbiyadeeyo? maxaan isticmaalaya ilmaha san u barbaariyo? maxaan haystaa? matyaar, adawaad. ma hiya wasaa'ilu tarbiya? waa bisa 5 soo maaha. okay, 5tani fankiina way gali, technicalkiina way gali, maxay gali oo kale? cilmigiina way gali. waxaan u imanaynaa hadafka tarbiyadda ya. ilmaan barbaarinaya, ilmaha aan barbaarinayo waa wiil amba waa gabadh. goormaa bilaamay inaan barbaariyo? marka uu caloosha hooyada gale ee dhakhtarka laga soo dhahdo uur baad leedahay. oo marka waxay bilaamayso tarbiyaddu. maaha inay tarbiyaddu bilaabmayso marka uu ilmuhu 5 jir gaadho, maaha. marka khalaas feer bas ku dhifanaysa badayso. waa maalinta la yidhaahdo cunug baa caloosha ku jira, dhakhtarku dhag kaadida laga arkay islaanta xaaska ay iskugu soo noqotay ku tiraahdo sheekh alxamdulilah, ay ku tiraahdo wallaahi alxamdulilah. ayaantaa waa inaad garatid inay cilmiga tarbiyaddu bilaabmayo. okay, haddaad labadan qof ee aqalka isla degan habeen iyo dharaar hadday isdiriraan, ilmuhu la socdaa isagoo caloosha ku jira. qaylada dhacaysa aqalka haggan buu kala socdaa. carada hooyadu ay cadhoonayso ilmuhu la socdaa. psychologicalan ilmaha yar wuxuu soo bixi isagoo wada cadhaaba, jig uu soo boodayo wuxuu qabaaba maaragtay wadagariir buu qabaa ilmu yaraa
leanna meesha dagaal baa ka dhacay. haddii guriga ay ka dhacaysay xabiibatii iyo xabiibii iyo qur-aan la akriyo iyo oo macaan uu ka dhacayna ilmo yaro habyaa soo dhacaya adduunkaad keena isagoo habya. walidaalika waa inaan garanno waxay culimadu imika heleen ilmuhu markuu 5 bilood jiraba waxa dibadda ka dhacaya uu la socdaa. waa cilmi la gaadhay weyaan, dhakhtarada sheegay waxa dibadda ka dhacaya ilmaha caloosha ku jira uu la socdaa, uu la taasuraya, waa la dhegeysanaya. ciyaalka musiiga dhegeysta iyagoo musiig jecel bay soo baxaan. maadaama musiig daartid halkaa ka daartid ilmuhu lagu soo dhaqaajiyo kula socdaa. haddaad quraan saartid ujeesan oo raaxaysan ba dhawaaqyadu maqlaya caloosha uu maqlaya. walidaalika quraanka maxaa ku qoran waana aragteen waaqica indhaha iyo samciga kee shaqada horta bilaaba samciga bilaaba maqalka. ilmaha haddaa saa ka tahay markuu soo dhashaba soo jeesanaya laakiin kuma arkayo. quraankuna wuxuu wajacala lakum as-sam'a wal absara samiican basiiran. samiic baa had iyo jeer ka horeeya basarka. okay, halkan waxaan uga jeedaa wax weeyaan objectiveka waa in la xadido. quraanka inoo xadida annaka objectiveka aan ilmo u tarbiyadayno yaa noo xadiday quraanka iyo xadiiska sunnaha wax yaa noo xadiday. limaada nurabbi baan ka jawaabina maxaan ilmo u barbaarinaynaa. quraanka wuxuu noo sheegay 2 hadaf. objectiveka la yeelan ha ku daalin wax kale waa 2 hadaf. kow maxaa ka ah insaan saalix inaad soo saartid qof fiican. ayuu u fiican yahay qofkaasi adiga oo aabihiya hooyadiya gabadha way u fiican tahay inankaasina u fiican yahay. yuu u fiican yahay dadka qaraabadiisa wuxuu u fiican yahay dadkiisa dowladdiisa dalkiisa wuxuu u fiican yahay bini aadamka oo dhan. waa insaan saalixa aakhirana uu anficaya naftiisa adduunkana u anfacaya. waa saalix waa hadaf. hadafka labaad waa maxay insaan muslix naafic ligayrihi weyaan. muslix waa inuu noqdo qof isagu isdhaafa oo dadka kale wax u tara. iskoolka waxaan kuugu daray haddaa ilmaha ka tirahdid oo wax kuu baray oo lacag kuu geliyey inaad naftaada anfacdid tarbiyad maha taas. inaad qof noqotid tarbiyad maha waxaas. tarbiyaddu waxa weeyaan objectiveku waa inuu ahaado labadaa shay, inuu wanaagsanaado qofku iyo inuu dadka wanaajiyo. naafic ligayri keyrkii anfaco. marka hadafka noocaasa sidee ciyaalka ugu sheegay maxaad ka oranaysaa waxaan ku hadafku ma loo sheegaa qofka la barbaarinayo meel looma sheego. hadafku waa inuu waadix ku ahaado qofka wax barbaarinaya. okay, hadafka noocaasa wuxuu u baahan yahay in la iska gargaarsado. annagu dee ma dhex fadhino bulsho muslim wada ah, laakiin bulsho kale waxaan dhex fadhinaa diin aan wada wadaagin, wax kale aan wada wadaagno. laakiin dadka aan diin wada wadaagno ee muslimka ah waa inay labadaas la gartaan. kow waa inay aqalka iyo masaajidka iyo dugsiga qur-aanka ee ilmaha qur-aanka baraya iyo miskiidka oo uu tagayo ilmaha yar iyo kuwa isboortiga ciyaarsiinaya eed u dhiibaysid hadday yihiin dhalinyaro soomaaliyeed oo muslima oo isboortiga ciyaarsiinaya. waxaas oo dhani waa inay isla og yihiin objectivekaas si ayna iska horiman. aqalkana wax loogu soo sheegin, miskiidkana wax kale looga sheegin, dugsiga qur-aankana wax kale loogu sheegin, inamada isboortiga ciyaarsiinayana ay wax kale u sheegin. waa inaa wax qura loo sheego khalaas. waa in laiska gaarsado. labadaa hadaf waa inay waadix ahaadaan. okay, marka hadafka noocaasa ayaa qof loo barbaariyaa. annaka Canada waxaa la dhahdaa C20 qof wadaniyo wanaagsan bay ku dhahdaa. wadani wanaagsan baa la sameynaya. laakiin quraanka kuma qorno wadani wanaagsan laana qofka muslimka wadankiisu waa halkee waa adduunka oo dhan. wajucilat liya al-ardu dahuuran wa masjidan nabiga yidhi dhulkoo dhan adiga waa lagu talagalay meeshaa tagtid ba saalix baa tahay. ittaqi llaaha xaythuma kunta. meel kastoo joogtid ilaahay baa ka baqaysaa. objectiveka waa kaas, hadafku waa kaa insaan saalix muslix dadkana hagaajiya. okay, waan ka imanaa markaa tarbiyad. hadafkii tarbiyada waa inay madaxa ku cadaato. cunugan yar waxaan doonayaa inuu wanaagsan. hadduu wanaagsan maxaa dhalanaya natiija aduu resultaga natiijada helayso maxay tahay ya qurata cayn indhahaga ku raaxaysanaya. gabadhaadiyo mutadayinada mutacalimada aqoon leh edab leh xijaaban dadkoo dhan ay ammaanayaan ilaahay u dhow qurata cayn. inankaagiyo saasoo kaleeta qurata cayn indhaha yaa ku raaxaysanaya. qur-aanka ku qoran tahayna soomay saas waxa weeyaan duriyatan muxuu qur-aanka qoraa tayibatan. ilaahu igu arsaaq ubad maxay ah wanaagsan. ila nabi muxuu ahaa zakariye markuu arkay haweeneydii wanaagsaneyd ee maryam oo haysata
habeen iyo dharaarba haysata maxaa dhahdaa cunto iyo raashin min ayna laki hada maxay ku tiri qaalat min cindi illah ina allaha yarzuqu man yashaau bigayri xisaab hunaalika dacaa zakariya rabbah markaabuu wuxuu ahaa oday aan ilaahay waxba siin nabi zakariya halkaabuu ilaahay ku baryey muxuu ilaahay weydiistay duriyatan ayiba anaku ilah ubad nasiib aan dhahnaayo waa naloo dhiibay dada wayna wareeriyeen laakiin waa inaad tirahdid ubad ayibatan duriyatan ayibatan kelmada ubad wanaagsan wanaag waxay kana tahay ubad raaxa aad ku dareentid weyaan marka orta taas waxaan uga baxnay waa saas waxaanu imanay murabbigii qofkii wax barbaarinayay qofka wax barbaarinayay marna waa ayo waa aabo mar waa hooyo mar maxay waa macalin mar waa sheekh mar waa maaragtay waa wasaaradda tarbiyadda iskoolkii waa waxaasoo dhan laakiin anaku waxaan ka hadlayna waa guri family baan anaku wax kale ma haysano aakhir xisni noo soo hadhay waxa ugu dambeeya maanta aan haysano waa guri gurigu hadduu inaga xumaado khalaas waxa inoo soo raaca masaajid wax kaloon haysano ma jirto maanta xisnigaas baan ka hadlaynaa marka murabbigaan ka hadlaya maanta waxa weeyaan waa waalidka murabbi waa ruknigii labaad murabbigu maxaa looga baahaya ninkan murabbiyo cilmi iyo fan iyo mahaarad maxaa looga baahaya 5 shay qaata bas waqtigu nagu filo ya sunnihii quraanka sarna awalan waxaa looga baahan yahay qofka murabbigii inuu noqdo qudwa in lagu daydo qudwa cunug gayra dhashay iyo gabadha dhashay model u noqo hooyo tahay ma model noqo abba tahay model noqo hooyo been ha sheegin adigu weligaa been ha sheegin laakiin adoo tuuranay hadday ku hartay ka horan hooyo been ha sheegin adoo tuuranay ku hartay adoo tuurataaba dhag telefoonka ku tuuranaysaaba naasaaka waan gici kari waayo wallaahi way ka fadhiisato adoo mabaqsi dhex fadhiya oo wareerinaysaa tan ciyaalkuna ku arkayaan war islaantu waa ta tuuratay maaha odaygu waa ka tuurtay maaha way ku ciyaalkuna waxay ciyaalku maxay ku istaan ubadku waa rekor hadhow markaa ka taadi been ha sheegin ka taadi way ku soo eegoon kuma oran karto yaa tahay abe beeralta kuma dhacso laakiin waa lagu soo yar eegoon ordaygani baasha oo guraya yaa u sheega laguma hadlayo waliba ciyaalka halkan ku dhashay waxaan u bixiyay birta ku soo daawanaysan birta wada taqaaniin ciyaalka dhulkani waa bir ma qoslaan ma jajabaan saambe ku saagayaan mid baan ku yiri salaam calaykum calaykum salaam waalidkiisa dhintay waalidkii baa dhintay ilaa u naxariisto okay um bigeedo ilaa u naxariisto okay waa waalid baa dhintaa okay ilaa u naxariisto waa birde dhagax uu noqday saliid ma leh saliid inuu mareero baahan yahay qofkan saliid diiniya saliid akhlaaqiya yaanu baanahay marka murabbigu تكوبات محن نحن وإن قدوة نقطين لما تقولون محلالي ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون مركا وحا المها وإنه كو أركب موديل هبت هو عادي المه إلا الحجير قاري موديل بطل أباهي وجيسي أباهي ومتعلم أباهي وفريد هو يدي وكترتي وساويا لكن مركا الحجير دافيو أمركو بلابيو أباهي وحنو يقانو وحنو يقانو إلا مركو سكولك وحكو صورة توك فيديو أبا وحا بلايلي والله أنا مقرات كورد ما كسرت قانا خلاص أوب بلابينا عادي توقرت مركا الحجير توجيهات الموكو دافيا مركا وسوق قارس دي تمجيرنا هدو كواركا إناد واحد شيء صحبايا كجرين كما دقي سريع هدالي كن قدوة لأبنائك وبناتك هداتها قبلنا كوني قدوة النقطة أبتك أنه نقرنا حاكون نكون قدوة أبتك هون نقرنا محاجة موديل نموذج وتكوبادو يعني أرنت على بعض مربي محل لغة بهاي إنا يلانو علاقة حب وتبادل وبتكينها كل دقنا جعايليو إيو وحسوي درسي باشان دانو كسعة ما فعله وفي أفريقيا ما صعت وإنا سند المهل تجيست أصلا إلهي اللي بقى الدود بنسيي اللي بدأ جود هي أفقرات waxay ka dhigan tahay wax sheeg laakiin wax badan dhageyso ubadkiin waxay doonayaan dhageysano markay annaka la hadlayaan aniga ba hata ku hatee ubadkiinu gingo ma taqaana ilmaha waxaan ku iraahdaa maanta tactaa laakiin markay ciyaalka la sheegaysan asxaabtoodii macalinkiyo way furmaan waan yar eega dadka markay la joogaan markay waalid soo la joogaan iska waran fiicnahay muxuu kugu furmiyay ilmaha ma aan barin dhageysiga waxaan barnay la hadalka
marka cilaaqada xiriirka aan leenahay ubadkeena ha noqoto cilaaqatu xub sidii nabiga calayhi salaatu wasalaam nabigeena xubbiga uu hayay xasan iyo xuseen maxay gaadhay darajad waxay gaadhay غير caadiya darajad waxay gaadhay lubigiisa ay qabsadaan isagoo mimbarka korsoon buu soo dhacay waa akhrinaa waxa baaray dhabarkiisa ku ciyaarayeen garkiisa ku ciyaarayeen ilaa nin acraabiyo miyi intuu yimid rasuulka ya rasuul allah wallahi anu ma yaabay toban baan dhalay midna ma dukan adiguna dhukasha kala daashay ciyaarka anigu toban baan dhalay toban axad aan yidhi ma jirto nabigu wuxuu ugu yidhi maxaan kuu sameyn hadduu ilaahay qalbigaa ka saaray jacayl naxariisti marka cilaaqad waa in noqoto maxaan odhay xidhiir xubbiga dareenka ubadkuna uu kacsan yahay inaad jeceshahay inaad nacdid way ku galanayaan ya sheekh la yidhaahdo mustafa doctor weyn oo ku takhasusay cilmiga tarbiyadda oo maaragtay bixiyana seminaaro iyo dowlad in laga faa'iiso u baahan wuxuu idhahdaa maalintii ilmu wuxuu u baahan yahay 5 jeer in la dhukado ano iska yeel baan laban dhaa fikir weyn bal way badan yihiin midka noqon 5 ku dhifo 4 baan 5 ku dhifo 4 20 goor way yara badan marka laakiin wuxuu ku leeyahay wuxuu u baahan yahay maalintiiba 5 dhukasho dhukasho walbana macnay leedahay wuxuu yiri ninkaasi cilmiyan waxaan baarnay buu meelaha ciyaarka laga dhukado madax hadii laga dhukado hadii garabka laga dhukado hadii gacanta laga dhukado mid walba ilmaha waxay ku abuurtaa mid baa ixtiraam ku abuurtaa mid baa jacayl ku abuurtaa mid baa dulqaad ku abuurtaa mid baa iga raali noqaa ila ilmaha ku qaldamaysaa waalid baa tahay waad khaldantay ilmahaagii baad soo jiidataa sidaad u dhukan marka waxaa soo dhamay waa dhukashada baa cilmiya marka waxaan u baahannahay cilaaqadeenu inay jacayl noqoto iyo tabaadul tii labaad tii saddexaad baan gaarnaa waa murabbigii waxaan ku jirnaa murabbiga maxaa looga baahan yahay ninka murabbiga waxaa looga baahan yahay laba sifo oo isdul taalla inuu mid ka dhigto sabuuran xaliima inaad noqotid qof sabir badan dulqaad badan ciyaalku waa mood waa caalam kaa duwan saddex shay bay naga duwan yihiin da'dii bay naga duwan yihiin annaku waan kordhnay iyakuna way naga hadheen waxaa kuu dhexeeya waqti dheer 30 sano waxbaa nin dhexeeya markaad isagu ciyaaraya adigu waxaad doonaysaa meel wada degan sabir bay kaga baahan tahay buug quraan baad la soo baxaysaa ciyaaraya waxaad doonaysaa inuu iskool dhigto wax kaluu ku dhex jiraa inaad sabir bay kaga baahan tahay sabuur inaad noqotid dulqaad badanna ilmaha waxaad ka leedahay saacaddaa soo hoyo ma soo hoyanayo meel buu iska soo sheekaysanaya wuxuu iska jiraa net buu iska dhex jiraa caalam buu ku dhex jiraa waa ina waxay kaga baahan tahay sabir sida la sameeyo masaaisha ku sheegi doonaa laakiin sabir buu baahan tahay ka maxaan dhahnay inaad saabir noqotid iyo xal nabigu wuxuu ku dhihi saxaabiya ashaj muxuu ku yidhi ilaahay wuxuu ku siiyey laba sifo oo ilaahay uu jecel yahay rasuulkiisa yaa kugu dhex jiraa laba sifo waa alxilmu walanaaha inaad tahay nin dulqaade deganna walidaalika deganaantu waa xilmi ka dhalataa inaad degan tahay ilmaha hadduu ku idhaahdo oo ka tiri caawa 10 dhigo okay buu ka yidhi uu dhigtay laakiin waa taqaanaa ciyaalku 20 minit waa iska laabeen bog waxa kala galaya maxaa laga baahan yahay dulqaad inaad la socotid waxaa dhahdaa laba sifo cajiiba waxaa dhahdaa ninka geesiga ah laba sifo leeyahay sifo waxaa dhahdaa taqaabi doqon buu iska dhigaa doqon hadda doqon ma taqaabi soo taqaanaa doqon iska dhiga ciyaalkaaga de geesi laskama dhiga iyo xaaskaaga iyo ragga u sheegay taas yani islaanta haddii oo sira diideen geesi aad iska dhigtid wasfuraysin maxaad geesi ka dhigi meesha dhulkaa las dhigaa taqaabi waa laska ilaaliya iyo maxaa laska ilaaliya maxaa la sameeyaa taqaaful wax dhacaya hareer ka dhacaya wax kastiba lama soxo ilmihii maanta wax khalad weyn buu ku dhacaya taqaaful baa la sameeya wax arkin baa la iska dhigaa taqaaful waxaa lama socda anigu laakiin waa la socotaa waad arkaysaa dhag gabadhaan dhalay baa inamada aan dhalay kee caqli badan tahay ma garan agab bay ka maqlayaan waxay tiraahdaa aabba una arkaya laakiin usa geedeynaya oo nala socdaa bay tiraahdaa laakiin usa ka dhaafay bay tiraahdaa marka taqaaful iyo maxaa jira taqaabi labadaas sifa anaadku waxay ku keenaysaa wax walba haddaad faragelisid waxaad noqonaysaa qof dadku ay yidhaahdaan waa maaragtay waa nin una xisaabinaya way ku nacayaan ciyaalku culays baad noqonaysaa walidaalika buu axad alculamaa wuxuu yihi gacantaada ha adkeynin qalbigaana ha adkeynin maxaa yeelay ubadku waxay rajaynayaan inaad hore u dhimatid waxa aad haysid base u dhaxlaan ilaa gacantii baa dhagaxee anu waxaan garanaya rag taajirinahayo waddankan ka yimiday ma taajirinahayo laakiin yara bakiilinahaa ciyaalku wada sugaya odaygan goor buu go-aya mid jecel male waa go'itaankaaga la sugaya laakiin gacantaadu hadday furan tahay ciyaalka okay qalbigaaguna uu furan yahay ilaahu cumriga u raaj bay ka hornayaan
ilaahu aabba iyo hooyo cumriga uga dheere ilaahu dheer wixiiba waa siisaa waxa soo shidba waad cuntaysaa laakiin dad ka xidhaysid waxay qoolnaa kani muu socdo waxaa hun dhacde marka waa muhiim jiddan arrintaas marka alxilmu maxaa oranay wasabru amba walanaa sifada afaraad ee loo baahan yahay waxa weeye almusaaxabatu alraxiima inaad la saaxiibtid si naxariis leh saaxiib ha u noqonin qof ka weyn oo saa usoo eegayo ka naxaan superman soo taqaanaan ha ku noqon ilmaanka superman waxaan ilaahay soodayaasha yaa hala seexdo hala kaco adoo lugta aaro dhag waa ni ala socdaa televisoonka xidhaa qur-aanka fura akriyaa war odaygan culus iyo dhagaa bisiya iyo islaanta markay soo gasho dumarka waxay leeyihin tactaca badan niya kac bisad bay kumoodayaan ilaah hareeraha yaga laga leeya labadaa mid loo baxno la saaxiibta ola noqonaysaa okay garabka qabso ilmaha ka dhexda qabso birbaaxyar ku dhifo kaftan ugu dhiib waxaad ugu dhiibaysid okay markaad salaamaysid si dhalinyarada u salaan ya salaamu calaykum waa sax san ka dhacda doonsid taqaanaa salaamu calaykum ka doona tii kale isla qaban daro haddaad tiraatin waa khalad odayga dhagaxa khalad mala xamale waxaan xaraar maaha assalaamu calaykum dhag markaas ku dhifatiin tii kale ugu dar mucaanaqadii bar waa waxaasoo dhan baa loo baahan yahay oday waxaa dhada waa lasoo dhaadhacaa yatasaabaa qofka murabbiga muxuu sameeyaa uu iscaruureeyaa iscaruuree cunuge baa ohan karnaa miya adugu cunuga dadiisa iskaan ya ihtimaamaadka tifliga ilmaha waxa uu had iyo jeer ka sheekeynayo kala sheekeyso ha ka hadhin ilmaha wuxuu ka hadlayaa waxaa magaalada waxaa jira okay ilmuhu kubad buu daawadaa adigu waxaa tahay hooyo fiican oo qaari'ada ilmahan kubad buu daawadaa kubadda yaro egeeg la soco kuubkii ugu dambeeyaa qaaday yurub barcelona baa qaaday ku yaro tuuro markaa la sheekeysanaysid maashkii wax shalay talo barcelona khatar buu ahaa dhe waa isla socotaa islaantoodii shaashka wuu ku dhageysanayaa marka ilmaha ihtimaamaadkiisa imo waxyaalada rokiga maxaa la ciyaara kubaddan rokiga ragga ciyaara la soco oo wax ka ogow ahamiyad badan ha siinin siduu sheekheenu noo sheegay maarata mustafa burca wakeela wuxuu ihi baal la buufiyey bay naftiis ka saareen waa sax taasi adigu waxaa ka weyno laakiin la soco indhala-aana ku noolaan dhukan ya waxaan la soco waxa yare ciyaaraane maaratay ay ciyaaraan waxaa la soco sida loo ciyaaro anma ciyaar ka yaa badiyaa khatar adaa badiyaa libaax baan ka dhastaan waxba dha laakiin inaan wax ka yar aqaano ficnaan lahayd oon la yara sameeyo waqtigaana ficnaan lahayd waa inaa ihtimaamaadka ciyaarka la socotid iscaruuree qofka murabbiga waxaa loo bahay markaa inuu saas sameeyo ugu dambeynta sifada shanaad qofka murabbiga looga baahan yahay waa maxay waa inuu noqdo duu khuluq nin dabeecad le waa inuu noqdo akhlaaq leh jaadibiye waa inuu yeesho waa inuu soo jiito ilmaha yar ilmahaagu markuu guriga soo galo waa inuu ku iman karayo asalaamu calaykum baba asalaamu calaykum mama waan ku dhicelahay waa inuu kula sheegeysan karo inuu wax kaa qaqariya maaha okay ilmahaagu hadduu haasaabo bilaabo qofka u waray u sheego in adiga noqotid suuqay gabadhi wiil ka soo heshay waa inuu hooyo imato hooyo xali mid baa iyar tuurtee bal ka waran ku tiraado laakiin kaa qariso mar dambe bug kugu siiso wixii baa qofaad garanayba inanku waa inuu saa kula tashado waa inuu sirtiisa qaar ba adag oo sirta kuu sheegay laakiin laabud waa inaan saas maxaa keenaya waxaa jirta dhaa shaksiga murabbigii waa laba un waa shaksi daarida iyo shaksi jaadiba shaksi wax erya oo dadku ay ka cabsoodaan iyo shaksi soo jeeta nabiga maxaa yihi fabima raxmatin min allahi linta lahum naxariis ilaahay ku siiyey baa dadka ku hanatay dadkoo dhan buu hantay ilaa ay moodayeen inuu qofna qofka jeclayn anigu waxaan aad ula yaaba dadka ugu cishaa camr bin caas markuu islaamay uu dhowr cisho nabiga la fadhiyey wuxuu ihi nabi maxamed adduunkaba adduunka ugu jecel yahay oo maxaad ku tiri wuxuu ka yaabay sida usoo eegayo hada jeer nabiga indhihiisa lagama baxayn waa laga dhargay indhihiisa qaar murabbiin oo waxaa jira qofka markay eegayaan kusoo eegeenba salaamu calaykum alaykum salaam adeer iska waran ma fiican tahay fadhiiso cashar hor waa maxay ka dhagaxi laakiin salaamu calaykum ahlan wa sahlan oo maanta shugaa ka sitid waa yarji ciidan yahay marka tahay maar waan horaan usoo gashaday hayde ilmaha waa dareemaysaa mid baa yidhi
sheekh baa ku yidhi salaamu calaykum miskiidka calaykum salaam ilma ku yaroo cunuga okay maanta waa maxay maxamed buudho hooyaday ma erga soo aragtay markay hooyadayba waxana ma erga soo aragtay waa qof soo jeeda rabbigu waa nin soo jeeda qofka rabbiga marka waa inaad ilmaha yar saa u dareentid ولذلك اخلاقنا وناس النبي محو كان عمرو بن العاص يا رسول الله ايمكو اسلامي هذا من احب الناس اليك ضد يا ابو جعشها يا كو قلب بدل نبيgu si wuxuu jawaabay nabigu waxyaalada meel kale ka sheekeeyo ma ahayn maartay leadership political oo beenala ma ahayn wuxuu ku horeeyay hadii saatay adiga abu koor la soo qalbigiisa qabsado wuxuu ku yiri Aisha qofkan adduunka ugu jecel waa Aisha اوكي وقرتي وحولي ما تاتي دوسلانتي سي وحاسكي سي لا اسالك عن النساء اسالك عن الرجال بولي رجل ودي ابوها بلقيت ابيه ده نقول على ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ولد ده سعود وجبيه اسكامس من له halka dambaad galibay waxa rag orba maxaa ka keenay inuu yiraahdo nabiga waa maxaa ka keenay akhlaaqda weeyaan سوء ايغيو سوء رالي غلينيو سوء قلبيgiisa wahananayo waxa soo rabaa keenay walihaada waxa dhada hadii ilaahay ubad ku siiyo qalbigaaga mid baa kulli inta kala kala sareeya waxa waa bini aadam waxaas sida ragga dumarka badan la mid ay u jecel yihiin laakiin su'aashu waxa weeyaan ha u bedilin wax la arkayo hadaad ilmahaaga aad ka u jeceshahay si fiican u eegtid ixtiraado kana adeegi weydid oo hinaasaya ولذلك النبي يوسف مركي ابهود يعقوب عليه السلام اي دريمان انه نكن وجنجيره ما يسميين way ka takhaluseen اقتلوا يوسف او اطرحوه بلاد ارضا يخلو لكم وجه ابيكم خلاص ka takhaluseen way ka takhaluseen marka waxa la rabaa inaad tusin ubadkaaga inaad kala jeceshahay rahiim akhlaaq wanaagsan ballaaran qof maaratay dhabta ay yeeshaan dhabarkaaga ay yeeshaan garkaaga ay yeeshaan hablaha islaamaha ay dirac ka gooyaan xijaab ka soo jiitaan naaysiida bilaadabada maaha u daayira ciyaarane waxa soo dhan waxay u baahan tahay waa ina ballaadhaan weeyaan waqti badan ma haysan ka baxna murabbi waxaan imanaa murabba alayhi kii la tarbiyadeynay isagana waayo waa cunugi aba waa gabadh yaray cunugi waa gabadh ilaahay baa nasiiyay waa nicmad ilaahay nasiiyay ciyalku waxay noqon karaan fitnad iyo niqmad iyo cadaab laakiin adaa ka dhigi kara nicmad bacd allah adaana ka dhigi kara niqmad okay yakana anigii ni sheegay waa saddexda namad iyo kaliyihiin labada namadna way kala yihiin si kale waan ni sheegay laakiin meeshan marka aan rabayno ilmaha rabayno maxaan u baahanahay ilmahan aan rabayno maxaan uga baahanahay afar shay baan u baahanahay المربى عليه maxaan u baahanahay afar almood kow waxaan u baahanahay inaan fahano ilmaha aan dhalay ee ilaahay nasiiyay gabadhii waxa noqotaba namadka uu yahay muxuu halku ku jiraa ma kuwa dhowba ma kuwa dheerba ma qalba ma ilba ilmahaga waqti badan gali adiga anaku raggu waqti badan waxaan gelinaa tim hortanka aan tagayna ka ugu fiican oo kaaba fiican buuq male hagaan sheekasano waqti baan gelin waa helay ilmaha aad dhashay waqti geli ku yahay okay labo ilmaha waxaad baadhaa ilmaha fahmigiisa waan ka hadlayno waxaad ilmaha baadhaa ilmahani ma nooca adag baa mise waa nooca jilicsan ma nooca haya mise waa nooca maya ayna garaj Soomaalida iyo Carabta iyo Muslimiintu waxay mid ka yihiin nooca waxay jecel yihiin hayiga hay aba saxkum ha ho ya saxana abo kayda ma saxanayo oo kan waa dhagax waa nacna kaas laakiin fil ilmiyan waxa la ogaaday ka fiican inuu yahay ka dhagaxa ay adag ay ku jigaaraya anu waxa idhaahdaa markuu dibadda u baxana waa jigaar qoladii iibinaysa mukhadaraadka doo yimaadina karadan maxaa wada wariya horta ka boran kani kalena hay dhibo illa shalay hayabu hay wax kalba u fudud yahay marka waxa ka jira qoladii jihadisbiga helaya oo diinta oo Suuriya tagayna waray la qalbar buule Suuriya balada wana adag shakhsiyad buule kan bila shakhsiyadana oo iska raaciyo telefoon ba ku iman alo aabaha salaamaya meelan joogay waa fariiru hurda ka soo toosi shalay muxuu waa nin fiican oo dhageystoha quraanka sidoo xafiday aqalka ma baxay هي فضول بك تدي بدنا هالجعلان ويلك هي بدن له تربية بك بايه لا دبر علمك التربية ده وحد على علمك التربية ده وحد على من لم يحسن لا
laysat lahu shaksiya qofka no aan dhihin shaksiyad male personality male qofka haye u yidhahda wax walba haye anigu waxaan ku jiraa wadaadada noloshooda dadka la wadaaga ka qarin aniga beri saaxiibaha kan la fadhiyaan beri waa liga ashkatoon jiray muucidadeeda dadka waxaan ka idhahdaa sheekh maxaad noo galay haa ma dhada mid kale waxaad noo galay haa laba isniintii baan laba qof haa ka yidhi miskiin baan ahaa kana waa yeelay teetagi ii sheegtaa tagay laba maxaad sugaysa waan ku jabay de magacaygan ku jabay anna waan jabay markii dambe waan fikiray waxaan bartay laadi waxaan idhaha maxaadra sheekh noo gali may waqti ma haysto qolo kale maxaadra galaya waa maanta soo maxaadra ma lahayn maxaa dhahdaa arbacada qolo kale hadday ka tirahdo maxaad sheekh noo gali oon hayon ka idhahdo xishood ba hayiga siinayay shaksiyadeeda halkaa u badnayd waalida ila fahmana ma jirin anaa da isbarbaariyay markii dambe anaa is siiyey inaan laa ina barto ya leedeeda way yara badanteen leedeedi ma garan laakiinse laadi maa soo kobciyey marka qofka aan laa lahayn muxuu noqdaa personality male ilmahaaga markaa noocuu yahay waa inaad baratid kani laada noo badan leh tarbiyad buu u baahan yahay wasaaisha ku sheegi doonaa kani nacamta badannana tarbiyad kale u baahan yahay okay waa ilmaha waa in la fahmo markaa tan kooda waa inaa ilmihii waa ina fahno labo ilmihii weyaan murabbiga waa inaan fahno bii'ada uu ku nool yahay ilmahan hakuu joogaa ilmahan ma wuxuu joogaa soomaaliya mise wuxuu joogaa ethiopia mise jibuuti mise masar mise wuxuu joogaa canada okay saqaafada canada taala maxay tahay ya ilmaha maxaa madaxiisa galaa maxaa dareenadiisa galaa okay waa inaan garano marka ilmaha bii'adiisa waa inaan garatid maxaa ku meersa yuu la saaxiib yahay muxuu akriyaa muxuu qoraa ya kolka qaarkood buugaantiisa eeg waxaa kaaga soo bixiyaa waxyaala badan markuu biblioteca taga librariga geesiga buugaan soo qaadanaya ilmuhu muxuu qaataa buugaan soo qaataa ila buugaan xoraa jirta buugaan soo qaada kaleeda ma muxuu doortaa ilmaha shaksiyadiisa ka reysaa ilmo yaro waxaa jirta qaadano buugaanta jacaylka gabadh yaro buugaanta soo qaata lamuuq alxub soo qanaysaa ilmo waxaa jira qaadanaya buugaanta dagaalka qaadanaya jira ilmo waxaa jira buugaanta falsafada qaadanaya ilmo waxaa jira buugaanta diinta qaadanaya ilmaha waxaad ka fahmaysaa bii'adiisa fahmaysaa maadaa yuxib ilmahaagu okay telefishinka markuu hor fadhiya muxuu sameeyaa waxaa dhan ilmahan bii'ada ku meersa waa inaad fahamtid waa laba ma murabaga saddex arrinta saddexaad ee muhimka waxayaan ilmahan da-da uu socdo taxadiyaadka hor yaalla maxay tahay waa inaad garatid ilmo 10 jira ma gabadh 10 jira waa ilmo une maxaa hor yaalla baaloq waa hor yaalla ay baaloqday amba u baaloqay bii baa ka yimid ambiyada dhiigi baa ka yimid see loo dhaqmaya taxadiyaad baa hor yaalla okay dareen baa galay hadirto waxbaa ka dhalanaya tarbiyad gooni ka dhalanaysa firaashkii baa la kala qaadaya haddii awal isma seexanayaan raggii gooni haweenkii gooni arrin kalaa imanaysa waxaa imanaya ilmahani hadeeto wuxuu bilaabayaa inuu dareemo xubnaha jirkiisa macnahay sheegayaan awal ka kaadin jiroon iminka wax kale u sheegaysaa wixiibuu bilaabayaa okay waxaas oo dhan waa inaad baranaysid taxadiyaadka marxaladda uu socdo cumriga ilmaha waa inaad cilmi u yeelatid si baa loola falgalaa arrinta afaraad ee ugu dambeyso oo ilmaha ku saabsan murabba ilmaha la tarbiyadanayo waxa weeyaan ilmahani waxyaalada uu rabo in uu noqdo mustaqbalka waa inaad aragtid aaba maxaad rabtaa adu intaa u sheegi maxaad rabtaa inaad noqotid ad maxaad rabtaa inuu kuu sheegaya waxaad garanaysaa dumuuxa uu leeyahay ihtimaamaadka uu leeyahay okay tarbiya mada ilmu kaga baahanaya wasaaisha ku sheegayna okay maxaan ka hadalna iminka waa murabbigii iyo murabbaga iyo hadafkii maxaan imanay majaalaat tarbiya ya tarbiyadu imise meedaan bay leedahay anaka diinta waxaan oranaa iskuulka islaamiga ilmihii geey islaamiga iskuulka ilmihii geey maxaad u geysay tarbiyad diini uu leeyahay tarbiyad diini kelmadaas macna ufrisaya أحد علماء التربية ماجد عرسان الكيلاني بعد هذا والشيخ وين ماجد عرسان الكيلاني والرسول يا مليا رشام وحوليه كتب وين وتربيتها شيخاس وعبقري وعلماء وين الإسلام كوين وحو باري تربية الإسلام كوين صنعه ومسمى جهل وفي الصدية خرطنا كل عنك متاي وحولي ولحية صدر نوع لحية
soddon majaal baa insaanka laga tarbiyadaya. Annagu mise ka tarbiyadayna qofka bilaha ka tarbiyadayna diintooda. waxaan leenahay dugsiga waxaan u geeyay islaamka inuu diin yeesho qofku. intii kalena yaa u deysay, intii kale waxa u deysay suuqa dee 6 iyo 30 5 iyo 30 xabad baad ka qaadatay 5 iyo 30 kale suuqa u deysay iyo adkaanay markaa iyaga ka adkaanay ilmiyood dugsi islaamka soo baxay oo quraanka xafisan ayaa noqonaya ciyaal suuq. si u dhici kartaa baa leenahay waxa u dhici kartaa 5 iyo 30 kale meel kale laga rabeeyay adu xabadun baa tarbiya diiniya qaatay bis intii kale u deysay. okay waxaan nii sheegayaa markaa majaalaadka ugu muhiimsan 10 maanta ma karaan inaan 5 iyo 30 ka dhameeyno. majaalka koobaad ee tarbiyada oga baahna waa diinta weeyaan, tarbiya diiniya. taa waa naqaanaa salaada, soonka, zakada, xajka, wasaaishan ku sheegi doona saan ugu sheegayna waa majaalka koobaad. majaalka labaad waa akhlaaqda weeyaan, dabeecadda. ilmaha dabeecadiisa waa in la toosiyo. waa in ilmaha qiyam loo sameeyo, qiyam faaleero, waa inuu qiyam rumaysan waa weyn waa inay jiraan. 3 majaalka wujdaaniga, 3 la socdaa waa in ilmaha la barbaariyo dareenadiisa hoose. wujdaanku waa dareenka hoose, waa in la tarbiyadeeyo. ilmuhu waa inuu wax jeclaado, waa inuu wax noco, waa wujdaan. ilmuhu waa inuu marka quraanka dhageysanayo uu la dawaqo, waa inuu hadalka macaan jeclaado. wujdaanka waa la koriyaa, wujdaanka lama cadaadiyo. tarbiyada dareenku wuxuu baahan barbaarin. waa 3. waxaa jira wax dhacdo tarbiya aljamaaliya, waa inaan qofka barno quruxda iyo xumaanta. waa tarbiyad. waxa qurux badan waa inuu qofka ku farxo, waxa fool xun waa inuu dhaco. tarbiya jamaaliya waa tarbiyad qofka waa la siiyaa. kayfa tujamil si wax u qurxinay artist waa tarbiyad. haddaan iyaga u deyna cadaanka taa annaguna aan diinta u barno dee wuxuu koranayaa ninka qaawan ee maaragtay hor yaalla meelaha iyaga markay gaaladu qof taswirayaan dhar uma gashaan ma way qaawiyaan. waa qurux iyo kaagtooda qof dhan ma soo kornay waa qurux badan taswirtan war waxaa qurux badan waa cawradii waa cawree adaana barbaarin tarbiya jamaaliya. maxaa qurux soo ma sheegin, maxaa fool xun ma sheegin ya. marka waa muhiim jiddan tarbiyada jamaaliga. marka tarbiya diiniya maxaa ku xiga tarbiya khuluqiya, maxaa ku xiga tarbiya wujdaaniya dareenada, maxaa ku xiga tarbiya jamaaliya waa quruxdii. 5 tarbiyada maxay tarbiya jismiya, jirka waa in la barbaariyo. jirka maxaa lagu baranayaa si mutawaazina. sheekhu muxuu nooga sheegeynayay sharka ugu badan waa calool la buuxiyo. ciyaalkeena jirkooga markaan tarbiyadayno, jismiga markaan barbaarinayno, ciyaalkeena waliba dhulkan aan ku korino bahalkiiba u buuxa mukayab bahalki maxaa dhahdaa galaaseerki maxaa magacana u leeyahay galaaseerka waa afkii ya salaajida buuxinay wax kasta ku jira qab baqbaq way wada baqbaqeen. laakiin jirkii marka dambeetana qaarkood waxay tagaan meesha maxaa dhahdaa jiimka lagu ciyaaro. maalin dhowta dhalinyaraan isku soo baxnay meel jiim lagu ciyaaro dhalinyaro Soomaaliya way igu farxeen ba sheekh maad ciyaartaa ha waan ku ciyaarsiinaynaa biladin. waxaa ku yidhi alxamdulilah na madaxiina ku shubi ninkuna jirkiina igu shuba jirkii madaxaas wadarsayna. okay ciyaalkii waxaan arkay shafkii oo intaas wada leeg dhexdooda wada yaraatay wada xoog badan qaarkood waan ku farxay salaada tukanayaan ahlu cibaada ahlu khayr qurux badan weeyaan oo cajiib ah. laakiin mushkiladu waa maxay? mushkiladu waxa weeyaan jirka dhismihiisiiba hadaf noqday in jirka la dhiso objective hadaf noqday jir qurux badan. maxaa yeelay waxaa laga dhigay hadaf meela socotaan. marka jirka waa in la dhiso waa muhiim. maxaa jirka ku dhisaynaa? cuntada marka aad tagtiin meesha wax laga soo iibinayo waa inaan la soo iibiyo cuntada jirka dhisaysa. suuratu naxl bay noo sheegtay, waqti ma haysano. suuratu naxl waxay noo sheegtay 5 nooc ee raashinka la cuno, kii proteinkii, kii fitamiigii, kii maaragtay maxaa dhahdaa sokoriyaadkii, kii maxaa dhahdaa subagii. 5 shay bay ku baahnaayeen, 5 shay baa dhahdaa ee jirka kuriya. suuratu naxl bay ku dhan tahay. suuratu naxl soo ma akhridaan? akhriya suuratu naxl. suuratu waxaa dhahdaa alqilaa, cuntada isku dheeli tiran yaa dhahdaa. okay markaa jirki weyaan. 6 waa tarbiya alcaqliya. qofka maskaxda waa in laga dhiso, waa inuu qofku maskaxdiisu ay dhisato caqliyan. maxaan soconnaa 6 baan soconnaa. majaalka 7 maxay? waa tarbiya ruuxiya iimaaniya maaha diiniya. diintu waa shakligii salaad tukason iimaaniya waa gunti waxaad tagaysa waa ruuxdiisii waxaa dhisaysa. waa 7. tarbiyadda 8aad ee qofka biniaadamka u baahan waa tarbiya ijtimaaciya social. waa inuu qofku dhisnaado. xagga waa ninka dhahdo maaragtay waxa qofku sameynayaa camal dawciya soo maha. waxaa la sameeyaa maxaa volunteer
بنفال الله خلص سوش قنايا وعمل اجتماعي قف وين أنا برعمل اجتماعي ما حي كده تهي معود وين المبرتو أو ييو أو وو حو كده جاي أبتيو حو كده جاي إدو هبريرو وحاسب عادي ما حي كده أنت هاي ولا الإلهي عبد الناصر شيخا يا عبد الرحمن بشير وعيك الإمادين مارتي بري بهذا كذا يا حبتي جيبوتي لكن محاولة لي ما الذي آخاهما محاولة الكدقي في الله وحده إلهي درتي ما معنى في الله وإلا برعيالك إلهي درتي وإلاكو يهين نبي صلى الله عليه وسلم وأخوة إسلامية وإلا برو أخوة إنسانية وإلا برو اجتماعيا وإياك لا برو حي كنا انتهي هل كيت كلمتين هل كيت جوكتين واجتماعي جاركم محوية هي كندا محيتها هي بيئة محيتها هي واجتماعي قفكم أدو قف كفر محدو قبنيسا محد كهلس أجر تربية اجتماعية أوكي سدد تربية اجتماعية مهم جدا يدو سقال وحلو بهاي تربيتك كم إذا وحويا إنه قفك مسلم كالمهير مركا عن بربرنه وإن عن برنه تربية اقتصادية وعقبال هاي سطار $20 كسيا $100 كسيا سدد ولا فالقري تربية اقتصادية ايكونومي كان وتربية سيدي ليس إسلامي قمتها النبي يقول حكولي صلى الله عليه وسلم ما عرفت مركة ويسيسين يسين انت اللي قوي يسيستا بيها انت انا هو يسيسنا بابا ضافرنا شوف بس كسعوا تاون يقصعوا تاون بيها دي يقصعوا تاون دي ما إلا أنه لو سمي قار مركة قعنتها كانوا دقاقة ما وانا رسمي لكن هذه المياه الجاريه dad baa yidhaahdaa nebigu wuxuu yidhi biyaha aayar u yaraya saxraa buu ku noolaa ma isagu bila biyaha ayan wuxuu yidhi walow kunta calaa nahrin jaarin haddaad dul fadhidid xataa yaa webi socdo qululaya haddaad dul fadhididna intaad uga baahantahan ka soo qaado walidaalika biyuhu waxaa la dhahda biyaha kanada biyuma baahna xataa biyaha la isticmaalo way ku noqonayaan soo maha biyaha qala ku isticmaalo way ku noqonayaan laakin haddana in baa baabacda in baa baabacdo biyaha ka bayraata ولذلك waxa leeyahay waxa soo socda dagaalka biyaha okay muslimku ku baraya nabigu biyaha sawisin lahayd iqtisaadiyan xoolaha kul ma shi'ta waxa dooni cumbu rasuulku yiri oo xalaala washrab ma shi'ta waxa dooni xalaal lacab walbis ma shi'ta waxa dooni xiro oo hu ka dhigo min ghayri sarafin wa adonan wala makhyah adonan israaf sameynin isla markaasina aanan isfaantaarinin marka arinta sagaalaad waxa weeyaan tarbiya maxaan ku yiri iqtisaadiyan ugu dambeyntii waa maxay waa tarbiyada aan Soomaalidu ka cabsato yaan ee khaladka ma soo say wuxuu baa ilmu tarbiya siyaasiya in la tarbiyado political ahaan ilmaha yar political ahaan soo tarbiyanaysa waxaad baraysaa cadaaladda ha koran xisbiga jacayl xisbiga nacbo shaqada adiga ku taala maha adu waxaad baraysaa quraanka iyo xadiiska iyo tarbiyada islaamka iyo siyaasadda iyo waxa soo dhan waa cajiib cadaaladda ay baraysaa isaga markaa noqonay qof shakhsiya oo kala garta siyaasaddu waxay tahay markaas shantaa shay طبعا كاشي بقى تربيه لها اوكي ومجالات maxaan marka in sheegin 6 iyo 20 kale hayl waa 6 iyo 30 meeli اوكي maxay noo haray wasaa'ilu at-tarbiya ilmo maxaa lagu barbaariyaa wasaaisha aan isticmaali karno maxay tahay ya wasaaishu muayyan weeyaan adawaadkan haysana maxay tahay si aan ilmaha u tarbiyado nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu haysto inuu isticmaalay waxa kamid ahaa wuxuu yaalada nabigu haystay minbarka نقول خبض وحكي آخرين مكان لوكا عادية مكان محل اسمه منبر بالورس ضد كورة سوار كان أو وسيلة في عن منبر سو مكانه ماشي إمام كوكرو ومنبر نبي صلى الله عليه وسلم قول بوس نجري مركو وحشر حيو لوكو حريقي يوشا أو وسيلة وحشر حي موت كوشي هل كابو كوري ودمشلي قف كيبو هل كانوا قوري هم يجيبو هل كانوا قوري مركابو كلا سحاحي وحوري قف بني آدم كي وكا وحبا كل وحرات وتلامي نبي بقول أن هذا الصراط المستقيم سميري طريق مجاحي كديبنا طريقه كساري وحوري ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم ووسائل تربوية واستعمال النبي أنكم محان استعمالنا سئان وبدكين وبربرنا محان وسائل هيسنا ليه وسيلة اللي صوب الدجاج ليه وسيلة اللي بدي ما تردي طبعا ليه وحمد قبس كريسين مركا قبل قرني قبل في عين مركا إن شاء الله تعالى لحبة أنه بسم الله الرحمن الرحيم الوسيلة الأولى وسيلة كبار التربية ومحي هذه المرة لغة التربية ده ومحي
wasiilada koobaad ee ilmaha lagu tarbiyado maxay waxaa dhadaa wasiilatu ta'diib ilmaha waa inaad edbisid min gayri cunfin adoonan cunfi ya ad adayg lahayn min gayri liin wa min gayri liin adoona isdabacsineyn jilacna lahayn labada u dhexeeya min gayri cunfin ilmaha edbi ilmo xadkii dhaafaya haddaad aragtid ood ula dhaqantid un si yaroo jilicsan ma aha tarbiyadaasi wasiilada ta'diibku waa muhiim waxaa samee uu samayn waaye ciqaabtu maha dil anagu waxaan naqanaa dil waxaa ku qoran sunaha nabiga maa daraba rasuulu llahi axada qad biyadihi nebi maxamed gacantiisa kuma dilin qof ma garaacin garaac maaha tarbiyad ciqaabtu way badan tahay cuquubad baa jira waxaa leedahay laguma siinayo wixii raaya markaas uga tagsi lagu dhibayay ala weydaa khalaas waxaa leedahay ma daawan kartid telefishanka waxaa leedahay ma tegi kartid wixii aad jecleed qofkii waa ciqaab marka ta'diib laakin min gayri maaratay cunf inay kula gudbin liinkana iska ilaali jilaaca badan ma fiicno waalidadu waa laba nooc waalidada inta badan waa laba nooc waalid waxaa jira adag oo dhagaxa oo bira oo jajabniin oo hadalkiisu wada caniif yahay oo wada amar yahay oo wada nahy yahay oo kaasi ma socdo iyo waalid waxaa jira maaratay wax walba alxamdulilah ciyaalka daadi ha kaa fadhiistaan meesha kaasina waa jira waa laba nooc oo kala dartay wasat baa loo baahaya wa khayru lumuuri muxuu ahaa awsatuha marka wasiilatu ta'diib ya ta'diib waa inay gartaan ubadku ishaadu inay maanta wax sheegayso afkaaguna wax sheegayo haddaad sidaa u yareegtid waxa waa inay daayaan haddaad saa tiraada waa inay fahmaan waa inay kula socdaan marka ta'diibku waa wasiilo fiican weyaan wasiilada labaad wasiilada labaad ee tarbiyadda ee culimmadu ay ammaaneen min wasaa'il tarbiya waxaa ka mid ah inaa ciyaalka iyo cunugiyada lala safro wasiilatu safar hadda wax kale naga sheegayna maanta waxaa taqaanin maaha safarku muxuu yahay safar namarsha waa baxaynahay oo hagee tegeysi waa israacaysi waa hagee isku raacaynaa waxaan iska tagaynaa hotel waa anaka masaajid baan ag degaynaa hotelaga okay shanta waqti waan ku tukanaynaa halkanna waan ku raaxaysanaynaa waan isla keliyoobeynaa annaka iyo islaantii iyo ciyaalkii dadka rag baan uga sheekeeya saaxiibada waxay ma naga sheekaysaa bay dhahdaan laakiin rag baan uga sheekeeya nin saaxiibkii aan ku yidhi waan baxaynaa buuri waxaan ku yidhi labadeena ma baxayne labada xasil noo soo qaad wuxuu maxay naga qabanayaan annagu israacnay dumarkana maxay naga qabanayaan dee waa wada sheekaysanaa bayna dumarkana oo maxaan uga sheekaynaa buuri sheeka waa dhamaynay sheekadii dumarka may dhamaatay oo adna waa dhamaatay hadeeti waa su-aal cajiib aan la socda haddaad tirahda aniga iyo xaaskayga sheekada way noo kala dhamaatay macnaha adna waa dhamaatay ka dhata laakiin sheekada maxaaba dhaminba maalin walba problem baa yaalay nolosh baa socotee ya ayuha alinsaanu inaka kaadixun ilaa rabbika kadxan famulaaqii maalinta lagu aaso unbaa oday baa maalin qabri dul maray qabri buu ogeynaya islaam xaas u qabayo aada ugu adkeyd ba qabrigeygu dul maray qabrigan muxuu hadal hayaa buuri qabrigan ba hadal hayu qabrigani hadal buu hayaa buuri markaa qabriyada qaar ba hadal hayaa maalinta waa la kala hari lakin inta la isla joogo waa in la israacraaco weyaan marka min wasaa'il tarbiya muhim bay ka tahay safarka la isla galayo ciyaalku way ku fahmayaan adiguna waad fahmaysaa wax aana ku awal madaxaaga ku jirin baa kaaga soo bixi ciyaalka ila waa isla keliyoodeen marka xadiiskii baad garaysa cumar bin khataab man yacrifu hada rajul buri nin buu soo qaaday wuxuu doonaya inuu madax ka dhigo waa ninkan iyaa yaqaana bu ninkan iyaa yaqaana mid baa saraka wuxu ana aqaana waa taqaana ninkan ha cumar markaa su-aashii bilaabay ma safar baad la gashay buuri ma safar baad la gashay maya buuri maad la gacalooday buuri xidid mu dhex maray maya buuri ma lacag business baan dhex maray buuri maya buuri oo yaa ku baray hadda buuri xog ma taqaanid goormaa la isbartaa ragga iyo dumarkaba markay lacagna dhex marta lacagtu waa khatarad qof ay ku shaqaysaa ilkaha la iska gura marka waa la isbartaa arrinta labada la isku barta maxaa kamid ah marka la isku dhiso dumar ama rag xasla ciyaal asasiya ciyaal waa laba nin oo saaxiib ah baa isku dhisi waa kala joogsanaya maxaa dhacay waxba dhex maray wax hoosaa jira shuqshuqda yaa keenta xumaanta saddex maxaa kamid ah waxaa la isku barto ya safarka marka ciyaalka safar had la gelin waxba kama taqaanid saaxiibadood baa kaa yaqaana kuwa isla safraan isla ciyaaraan yaa kaa yaqaana idan wasiilada labaad ee muhiimka wax weyaan waa safarka weyaan ciyaalka hala safro halala keliyoobo arrintaas waa muhiim arrinta saddexaad wasiilada saddexaad waa maxay
muhiimka min wasaa'il tarbiya waxaa kamid ah in aad waxa aad sameynaysid ka dalbaysid adigu hortooda ku samaysid. waxaad ka tiri salaada hala tukado ku hortuga salaada tuji salaada la tuko ha arkaa salaada. waxaad ka tiri qur-aanka hala akriyo qur-aanka akri adoo kitaabka qur-aanka waxaa la barto wax baro cajiib ma ragga inta gaari kusoo qaadaan ciyaalkooga hordhiga maaragtay malcamada dugsiga iska socda salaamu calaykum aba qur-aanka tag maalin dhowta ana indhakan ku arkay wadaad baa ilmihiisii buu keenay meel quraan lagu dhiganay waa dawanayay ana maskiidkan galay salaada iga dhacdeen uu dhigay uu iska socday gaadhigii soo kaxeeyey kii yaraabaa intuu galay aniga xaska socday intuu galay iyo markuu aabii daaqada ka eegay inuu socday iska soo baxay dibaddu iska joogsay walaa iskuul buu dhigtaa walaa dugsi okay oday markuu soo ma dhigta quraanka ku soo bood gaadhiga gaadhigu ku qaad xabadu geenaya هذه العقلية موجودة marka maxaa la rabaa adigu adigaagan dhan raggan u sheega dumarku dadaalaan ikhwaan igana loo ragaya dumarku dadaalaan ficlan ragga waxaan u sheegayaa adigu maxaad quraanka u baranaysaa rag badan baa jiro quraanka akhri waliba ragga isku magaalada dhexdeeda Djibouti quraanka way is haystaan dagaal baa ka dhaxeeya iyaga quraanka adigu quraanka dhigo soo u dhigtay ilmaha macna male ilmaha quraanka waa mid ma meel dad habad ila soo hadbay sheekh ciyaalkii Masar baa geeyay quraanka xafiisinaya laakiin way la soo hadlaan waxa aabo adigu quraanka jib ku xafid ahayd marka ma dhaw iga eeg ma dhaw hostal kitaab quraanka baalkii rasuul waan akhriyaa buu iga eeg Allah ba xariif baa tahay inta ma ku mawliyaa wargaas adigu wuxuu gulay quraanka adiga quraanka dhigo ciyaalka ku oran quraan barta adoon quraan dhiganin ceeb bay tahay أنا كمان لكن دقوا ما أذكر القرآن إلهي ولا قد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر القرآن كمان فضلنا أريد كلام مهم أجرته مهم جدا أجرته المها وحى أتكلم هذا هاي أردن هداد سمين ويريد ما سمعنا يو واللي قال الله كدالي المه ما سمعنا يو وحى السمين كتير أجد أدوك أجد ما سمعنا ما سمعنا يسقونه مركا هكورن وحى السمين أدو سمين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون مركز التربية داسي مهم وسيرة داسي والسيرة داسي أفراد التربية دا مهم كوحويا المها مركز لبربارين وإن له استعماله الترغيب والترهيب سياسة هذا الترغيب والترهيب المها سياسة دا كعبسين تبغى نكون استعمالنا أنا كون استعمالي سياسة الترغيب إلهي بنكون استعمالني إلهي وحو إن بري جنة يمحونا سمي يا عذاب وحونا إن قاعد سيا مرنا وإنه بشاريها المها وين الله بضابل لو ميزامو سياسة الخوف معها كعب سينا هذا الجار وليبا خاصة سياسة الترغيب كلا بديها ترغيب كلا يريها ولذلك وحن قرنا يا ضد بدن وحبل بدنه مركا هبين كيا يسحنيان هردك السوق أو عبصودا مركا حيسات كيمدان لأنه واحد لو غشك هي ترغيب بدن qabriga waxba ku mas baa jira halkan wax kule indhaha ka soo baxaya absi baa la gashay meera waxaan nusuus saxayn marka qad lagu akhriya la wixii saxda oo sheegay laba malag baa jira su'aal bay ku weydiinayaan man rabbuka man nabiyuka meesha janna jirta ama cadaab baa jirta intaas uga sheekay okay tafaasiish ilmaha daysan la socda ilma yar oo 12 jira hada u tafsiirsi kora suuratu tuur hada fasirti amba suuratu daariyat amba suuratu qaf ilmaha argagax ba ku dhicba habeenka saxan maayo okay ina gabadh baan arkay tiri anigu markaan jannada xasuusto waa lagu waarayaa marka dhado waan isku ooyaa maxaad u ooydaa waa lagu waarayaa dheera bay qaadi kari lahayd maskaxdeedii waa lagu waarayaa maxaad marka qofka maskaxdiisa weele tarqiib iyo tarhiibka maxaa dhada u miisaan okay miisaan socona حاجة قريسة أفر رأس عنها تي أفر بك شيء جميعا شوي يعني والله الدور عجيبة يعني إليها نودة أمين لها رجع شيء والله بالله أقل الصومالي ويدومي لها يدي بلا دمري ويدومي لها أنا واحد شيء ولا بشيء هل كان ما كواركي أفريقيا ما كواركي أفريقيا ما كواركي دمر بدان حتى لا جات كيف دمر بدان وشقير يا خبرت iskoolkii bay tagayaan haddana ciyaalkii ka horayaan haddana markay soo hoydaan odaygii cunto u karanayaan haddana dhaw ay labisanaysaa sariirta seexanaysa war bal naagtani badanaa waa afar shay waxay qabatay filcada waaxida isaguna saaka markuu kacay intuu yaa cadeeday uu dhar fiican xidhabo maqaxid tago shaab iska cabo dhaq macawiishta iyada soo ibisi shimiishka iyada soo ibisi surwaalka iyada soo ibisi hadhow tolana
meel buu tago islaan jaaliyo dul joogsayo wuxuu ka qaatay rubuc jaada iyadaa bixinaysa uu socdo rag majlis la fadhiisto jaadku la cuno falsafad iyo siyaasad iyo dowladu kala wadaa aqalkiisii ma wada hadda la socdo waxaabuu ka shaqeynaya uu soo rawaxay habeenkiiyo cashadiiyo halkan loo dhigo maaragtay garow yara subag iyo alaab iyo wax loogu daro macaan buu jaqisi iyadii soo daashay oo suuqa fadhido oo sharshaari ahayd oo halkan fadhido oo dhar fiican xidhatay oo sariirta hurdo eegay hadduu doono ka shaqaystay hadduu doono iska seexday maca dalika ninkaasi waa qawaamadii halku geeyey raganimadii iska waaday iyadoo haddana kaba dalbayso waxba waxay leedahay ninkaygu dadka ha u ekaado nin ha noqdo duu ciyaalkiiba garax u xidhanaysaa halkanaa nimidayo waxaan arkay islaan iskoolka ciyaalku inta dhar xidhatay adag gow saa usii jeedoon gow ciyaalka soo danaysa soo noqonaysoon ciyaalka la gurayso gow lacag ba soo shaqeynaysaa haddana dhan kale gow tukaan meel ka furaysaa meelaha gow isagiina tim horta ku jam waba ka xanaaqaa markaa tim horta sheego war sheekhan maxaa tim horta ku dariigeliyay war adeer waa weligaa baan ku haysan ilaa dumarka iska markaa dumarkiina waan u duceeya wallahi reeruhu way dumi laheen dhanka afrikanismigaan ka nahay weyaan dhan carab baan ka nahay dhanka maaragtay anafada iyo qabqabta iyo reebel baan hay cid ma haysta aniga dhanka carab baan ka nahay dhanka afrikaan ka nahay waa caajisnimada afrika waxaad arkay beer dhan oo islaan falayso isaguna geedka hoos fadhiya shaah bay u keenaysaa bonjour shaah cabaya halka uu shaah ku cabaya iyadiina way soo faraysaa oo ninkani beerta muxuu ka qabanaya muxuu shaah tukaanka hoos qabanaya dhanka afrika ka noqonay dhankii qabqabtana maxaa ka noqonay carab baa ka noqonay xumaantii carabta iyo xumaantii afrika nagu dhan inaan isa saxno walidaalika naqdigu fiican yahay criticalku haddaan isa saxno waa fiicana okay wasiirada shanaad wasiirada shanaad ee loo baahan yahay waxa weeyaan waa wasiilo muhiim ah wasiirada shanaad waxaa loo baahan yahay qofka bini aadanka ah usluubka aad ula hadlaysid wax ugu sheegaysid inaad ka dhigtid maxaa ahayd waquluu linnaasi xusnan wax aad baadhay waa inaad qofka u sheegtid waxaad kasoo shaqaysay ilmahaagu hadduu ku dhahdo aabo waxaan muu jiraa may waan soo baadhi kadhay waxa yaable waxa weeyaan iskuulka markaad dhiganaysa adoo inta leeg haddaad macluumada ka tirahdid arrintaa ma taqaana professor doctora haysto uu garan waaye goolkan weydiinana kuleey goolka weydiin maraajic ku noqona iska soo baadhaya adigu wax kasta u sheegaysa ilmaha waxaa jirin waa sheegaysa aabo arkaan wuduugu waa imisa wallahi aabo balasoor baadhi sug moornaside arkaan wuduuga waad ku sidiin lab alaabaa jirin baa kusiisa ilmi yaraa laa iska soo baadh waxaa iska soo baadhay wasaa'ilada waquulu wax wanaagsan oo ilmaha wax u taraya u sheeg gabadha wax u taraya u sheeg qalbiga waa talixaad ugu dambaysa weyaan hadalka iyo waxaad u sheegaysid waa inaad taabatid wasiilo taabanaysa waa inaad keentid saddexdaba caqligii dareenkii qalbigii jirhkii qofku waa inaad qancisid weyaan waa inaad qancisid wasaail iqnaac waa inaad isticmaashid wasaail iqnaac maxaa kamid ah waa inaad ka jawaabtid su-aalaha man haddii ku weydiiso ilmaha yara goodho aaba ilaahay muu jiraa ya ilaahay muu jiraa iskoolka laga yidhi ma jire may uu jiraa ilaahay okay aaba hay suu jiraa lixdii su-aalood soo baadh man kayf limaada mata hal lix su-aalood caadi weyaan okay waxaa markaa usoo baadhid u keentid ilmihi yaraa madaxiisa qalcisay waxay lagu waaliyay waad gaarsiisay man khalaqa alkown waa sheegaysa man koonka ayaa abuuray sida loo abuuray goormuu abuuray muxuu abuuray waxoona mooga sheekeynaysaa wuu qancaya insha allahu tacaala okay waad mahadsantihiin sheekha ay gujiyey asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu jazakum allahu khayr insha allah